السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا هبون داوديال دلهانتين بملك استواد نجد داونيسان كسر دوادا برنامجك بندقة تيفيجا أو تضبط كي بحال مريضين كي ماذا مجال دبورة ما حرون تقبل كأوضب داوديال هاتن مانتا وحن قابتن مانتا كوريسان دونا قدوميها حسبك كلمية قبل كأوضل إسلام كان كوريسان دونا حالك جود حسبك كلمية أولادها دبر ديرادي كسر نقدي ديجانا ذاك الدون يدلك iyo sidoo kale colaadaha waliba ka soo cusboonaaday jiida hore ee deegaankaasi Tukara sidoo kale gudoomiyuhu intuu goobta nagula sugan yahay waxaanu wax ka weydiin doonaa sababihii uga soo dhex muuqan waayay ee isku shaandhaynihii kala duwanaa uu sameeyay madaxweynaha qaranku isagoo kamid ahaa saraakiishii sida weyn uga qayb qaatay ololihii doorashooyinka madaxtooyada ee gobolka Awdal ugu horreyn gudoomiye waxaan ku soo dhaweynaynaa barnaamijka bandhiga TV-ga ku soo dhawo waan dhawahay waad mahadsantahay waxaan wax yar oo kooban ka weydiin doonaa inaad bal nooga waranto xaalka guud ee xisbiga kulmiye wixii ka dambeeyay ololihii doorashooyinka guud ahaan ba dhaqdhaqaaqyada xisbiyadu way yaraayeen waa sidee xaalka guud ee xisbiga waqti xaadirkan wallahi xaalka guud ee xisbiga kulmiye uu wanaagsan yahay waa shaqeynaya waxa weeye wuxuu xisbigu dhalay dawlad buu dhalay madaxweynuhu soo saaray madaxweyne ku xigeen buu soo saaray murashixii xisbiga mudane Muuse Biixi Cabdi oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku xigeenka Saylici marka xisbigu shaqeynaya saraakiil badan oo xisbigeena ma garanaysaa ay dawladii bay kamid yihiin marka xisbiguna maadaama dawladii dhalay waa guul weyn oo soo hoyatay xisbiga kulmiye ayay hay doorashada u galay maadaama uu tahay gudoomiye xisbiga kulmiye gobolka Awdal dadkii sida weyn uga qayb qaatayna ololihii doorashooyinka tahay maxay tahay sababaha aad uga soo dhex muuqan weyday isku shaandhaynihii kala duwanaa ee madaxweynaha qaranku sameeyay wallahi waa run anagu the objective baan lahayn marka hore objective-ka aan lahayn waxay ahayd waxaan rabnay marka hore murashaxiin buu xisbigu lahaa murashaxiinta xisbiga mudane Muuse Biixi Cabdi iyo injineer Saylici oo madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynaha oo sharaxnaa madaxweynaha hadda oo Muuse Biixi Cabdi ayaan horta soo saareynay oo dooranayna our objective taas ay ahayd sunnaha dawladnimo ayaa waxay tahay in lagu magacaabi karana aan lagu magacaabi karin waa sunnaha dawladnimo wax iska caadiya dawladuna daaimka ay bilowtaa ilaa 6 bilood 7 bilood baabay shaqeynaysaa waqtigeeduna waa ka dheeryahay oo ilaa 5 sanadood weeyaan inta doorashadu ay tahay marka waa wax iska caadiya madaxweynuhu uu ku xulan karaa uuna ku dooran karaa ma garanaysaa cidda uu maamulka u dhiibayo waana wax caadiya oo sunnaha dawladnimaha in lagu magacaabo wax iska caadiya oo sunnaha dawladnimaha sida dhigaya I'm very happy now waan ku ahay runtii inaan shaqo weyn soo qabtay oo aan xisbiga u soo shaqeeyay waa wax iska caadiya in ma garanaysaa waa wax sunnaha dawladnimada ka mid tahay wax caadiya weey xisbi ahaan waxa jirtay in doorashadii dalku ka dhacday dhawaan ka dhacday inay bulshada kala duwan ku dhaqan gobolada dalka ay waxooga xanafa dhaxdhigtay ka xisbi ahaan maxaad ka qabateen muddadaasi aad joogtaan xanaftii bulshada ay dhaxdhigtay doorashooyinka laga soo baxay wallahi horta waxa weeyaan doorashadu waa sida ciyaarta kubadda oo kale kulli ciidun baa guuleysata marka kubadda la ciyaaraba labada kooxood ee ciyaaray ciidun baa guuleysata doorashaduna waa saas oo kale weeyaan oo tartanku markuu yimaado kulli cid baa guuleysata cidii guuleysatayna xisbiga kulmiye noqotay dadkuna marka in general eegto waqtigii doorashada baad moodaysay in haday xanafi jirtona iyo hadii cunfi kale uu jiraba waqtigii doorashada bay inta badan waxoogaa xisbiyada mucaaridku ay iyo xanaf iyo waxyaabaha buunbuunin jireen especially waliba gaar ahaan xisbiga wadani oo inta badan culture-kiisu ahaa inuu
cay iyo xanaf iyo waxyaabaha meelaha la taagnaado laakiinse dee dadku waa dad wada nool waa dad walaala waa dad wada tartamay noloshu waa iska caadi adiguba waad arkaysaa inaana wax dhibaato oo caynkaasoo muuqatahay ayna guud ahaan wadanka ayna ka jirin gaar ahaan gobolka Awdalna dee dadku waa wada nool iyo caadi markii doorashadii dhamaatay noloshu waa iska caadi wax dhibaato jirtaana ma jirto waxa jirta muddadii xilka uu hayay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo gudoomiyay xisbigiina kulmiye ka soo baxay waxa soo taray ama soo batay colaadaha kala duwan ee ka soo curtay deegaanada kala duwan ee dalka haday noqoto Tukaraq haday Ceelaf ay noqoto gobolka Awdal oo deegaan xoog faras la raadiyo deegaan kale banka Wajaale ay inta colaad ka socdo ka xisbi ahaan sida aragtaan colaadahaasi waxa idinka inaga bilaabay maxaa inaga qorshaysan horta colaad Ceelaf weyn waa colaad muddo soo jirtay oo muddooyinkii dambaba dhibaato jirtay weeyaan dadka walaalaha ee dhibaatadu dhex taalana waynu ducaynaynaa waxaynu Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay bogooga burcad isku mariyo dhibaatada dhex taalana Ilaahay ka qaboojiyo mid waata oo dee maanta waxaynu ka wada daragsanahay in guddi heer qaran oo cayaantii labeentii dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool ay Ceelaf weyn ku urursan yihiin oo madaxweyne ku xigeenka Mudane Zaylici uu hogaaminayo oo halka ay dadka ka dhex wadaan inay nabadgelyada qaataan marka deewaanu ducaynaynaa waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay nabadgeliyo ka dhaliyo guddida maanta tagtayna inuu Ilaahay ku guuleeyo ayaan Ilaahay uga baryaynaa aad iyo aadna waanu rajaynaynaa in hadii Ilaahay idma ay taasi soo afjari doonto waayo waa dad walaala waa dad wada nool waa dad marka shaydaanku ka dhex shaqaystay habar lamaan baaba la yiraahdaa taasi waxay ku tusaysaa in dad yacni walaalo oo meel ku wada nool oo wax badan wadaaga inay yihiin marka waanu ducaynaynaa inuu Ilaahay bogooga burcad isku mariyo nabadgelyaduna waa shay qaaliyo oo de horumar lama gaari karo hadaanay nabadgelyo jirin marka Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu guddida maanta ku sugan ee Soomaaliland oo dhan ka kooban min bari ilaa galbeed baa meesha loo gurmaday inay guul la taaban karo ay ka soo hooyaan arinta Tukaraq waxa weeye de waxa jira waxa la yiraahdo dawladnimadu saddex baa aasaas saddexda aasaaska waxa weeyaan waa inuu dalku marka dal la leeyahay waa inuu jira geographical locations yani xuduudo mucayan oo uu leeyahay marka halkan de Djibouti baynu la leenahay xagga Ethiopia xaggaana Soomaaliya aynu la leenahay marka xuduudaha mucayanka waa inay jiraan oo de waa waxa marka dawlad la oranaya ayay ka dhalataa waa inuu dadkii ku noolaana waa inay jiraan marka dawladdaasi hoos imanayay iyo administration ka jira marka saddexdaas oo la isku daray baa horta dawlad la yiraahdaa asaaskeeduna de waa inuu leeyahay wax la isla yaqaano geographical location kii iyo ma garanaysa xuduudaheegii mucayanka ay leedahay marka dawlad kastaba xaq bay u leedahay inay xuduudeeda ilaashato Soomaaliland xaq bay u leedahay inay xuduudeeda ilaashato taasi waa taa arinta Wajaale ka dhawaajisay runtii arintaasi aan waxaan u qabaa inay misunderstanding tahay waxa weeye wasaaradda beeraha horta policy buu xisbigu ku galay doorashadii policyga uu xisbigu ku galay waxay ahayd in uu dhiirigeliyo lana soo saaro in isku filnaansho xagga cuntada oo ay wadanku gaaro marka sites ba barka la tijaabiyay oo ma garanaysa dawladii horena mashruuci Wajaale baa loo oran jiray marka site-ka halkan Wajaale iyo meesha xaaxil la yiraahdo iyo seertan meel aynkaas marka in pilot project lagu tijaabiyo wasaaradda beeruhuna iyada kulli hormood waa marka intaan ka warqabade wasaaradda beeraha oo wasiirkeegu hogaaminaya Axmed Muumin Saad waxay ka bilaabeen inay pilot project ku sameeyaan inay ku tijaabiyaan bal in dadku ay isku filnaan karaan oo cunto ku filan wadanku helo ummad aanan lahayn ummad aanan waxay soo saarto aanan quudanin oo ku nooleynina de ummad meel gaadha ma noqonayso marka siyaasadda xisbiga kulmiye bay ahayd ballanqaadada xisbiga kulmiye bay ahayd in certain places meelahaas ka mid yihiin cunto laga soo saaro ku filan wadan si wadanku horumar xagga cuntada ka gaadho
kolley arintan kale halkan gobolka awdal xoog faras kolley dee dhulka iyo beeruhu waa iska mushkiladahooday leeyihiin oo waa iska dhibaato caama oo iska jirta weeyaan kolley dee mas-uuliyiinta gobolkuna way hawshaa intaan ka warqabo way ka howlgaleen dee waan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inay si fiican ku dhammaato hawshaas. xisbiga mucaaridka wadani dhowaan shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa wuxuu nagu eeday in xisbiyada u ciidiyo kulmiyo oo kaliya ay ka qayb qaadanayaan xalinta colaadda deegaanada Ceelafweyn. maxay tahay sababaha looga reebay xisbigaasi? wallaahi waxa weeye dee horta waa xisbi qaran weeye maadaama xisbi qaran yahay mas-uuliyad baa ka saaran dhibaatooyinka qaranka ama bulshooyinkeena Somaliland ku wada nool dhibaatooyinka dhex yaala dee mas-uuliyad baa ka saaran guud ahaan xisbiyada oo dhan mas-uuliyad baa ka saaran xisbiga wadanina dee mas-uuliyadda labada xisbiga kale ka saaran uunbaa isaa ka saaran marka labada xisbiga kale dee si volunteerisa ayay uga qayb galeen oo ma garanaysaayay si colaada loo damiyo dee way qurux badnaan lahayd inay iyakuna gartaan in dee dadkani dadkoogii ay yihiin dadka isdilaya ay dadkoogii yihiin inay nabad laga dhex dhaliyo ay tahay in ay arrin qaran tahay marka dee hadday garan waayeen mas-uuliyadda saaran kolley waxaan qabaa inay halkaa ku fashilmeen iyaku. waxaa jirta in dhowaan ay hadleen xildhibaanada gobolka awdal ka soo jeeda ee golaha wakiilada Somaliland ayna sheegeen inay ka qayb gali doonaan doorashada wakiilada soo socota sababo la xiriira saami qaybsiga kuraasta wakiilada oo ka cabanayaan arrinkaasi maxaa ka xisbahan iniga qorshaysan? horta arrinta saamiga anigoo ixtiraam badan u haya xildhibaanada gobolka awdal iyo guud ahaan xildhibaanada Somaliland oo dhan dee waxa weeyaan waxaad iminka maraysaa teeramkii saddexaad bay maraysaa inta ay meesha fadhiyaan almost 15 sano 14 sano meelahaas ayay fadhiyaan marka in doorashadu qabsoonto inay doorashadu qabsoontaana muhiim weeye marka inay qayliyaan ma aha waxa weeyaan xildhibaanadu iyaka xirdajina dawladdu way kala qaybsan tahay waxay ku qolo waxa weeyaan saddex bay ka kooban tahay u jeedaa sadamaad garan saddex waxa weey saddexdaas mid waa iyaka oo waa legislative oo waa iyaka sharci iyaka sameeyo sharciga iyaka laga rabaa inay sameeyaan ma aha inay qayliyaan iyaka laga rabaa inay sharcigii ay ansixiyaan shuruucda horyaar iyaka laga rabaa inay sameeyaan wixii shuruuc ee doorashooyinkan iyo nidaamkan iyo waxyaabahan ay u baahan yihiin marka de qolana waxa weeyaan groupna waxa weeyaan qolo waa sharci dejinta qolana waa maxkamadaha oo cadaaladda iyo executiveski oo ah maxay haydeenay maamulkii administrationkii marka hawshaasi waxaan qabaa inay hawshoodii tahay ka gaabiyeen waxaa leedahay xildhibaanadu iyaga ka gaabiye waayo xeerka baarlamaanka lagu dhex sameeyaa. waxaa jirta in dhowaan uu hadlay isaguna wasiirka wasaaradda beeruhu oo sida maanta hadlaysa say u dhow u hadlay isla markaana bulshada gobolka awdal ay dareen kala duwan ka bixiyeen sideed adika gudoomiyahan aragta hadalkii ka soo yeedhay wasiirku waxa weeyaan wasiir dawladda ka tirsan xaq buu leeyahay inuu cabiro aragtidiisa waana xildhibaanadana uu hoga tusaaleeyay marka wax ceeb oo wasiirku ku hadlay ma muuqato mana jirto. marba marka ka dambaysa waxay soo tarayay sidii hore aan ku sheegnay colaadaha kala duwan ee ka jira gobolada dalka ee saami qaybsi sixir bararkii xisbiga kulmiyo waxyaabihii ololaha doorashada ku soo galay kamid ah in sixir bararka wax ka qabanayo uu dalkoo dhan barwaaqo ka dhigay ilaa haatan ma jirto qodobo muuqda oo laga soo saaray sixir bararka oo bulshada danyarta farabaan ku haya xisbihan maxay niga qorshaysan muddo inta leeg ayaad si ku xalinaysaan sixir bararkan dadka naafay? waa sax weeye waa su'aal wanaagsan horta arrinta sixir bararku waa arrin dhibaato dhaqaale oo bulshadeena haysata anigu waxaan u aqaanaa sicir barar maahine waa sarif barar weeye waayo sarif barar waxay ku tahay waxa weeye adiga iyo aniga iyo inteena mujtamaceena halkan ku nooli mushkiladayna haysataa waxa weeyaan waxaynu dependence ku noqonay
lacaga shisheeye oo qalaad arrintaas waa arrin khaldan weeye ummad kastaaba waxay leedahay waxay qiimayso values bay leedahay wax dhaqaalaheegu ku sargo'an yahay bay leedahay innagu haddaynu jamhuuriyadda somalilan nahay waxaynu leenahay dee shilinka somalilan baynu leenahay inaynu isaga tayayno oo aynu xoojinno dowladduna waxa ay soo saaraysaa waxa weeyaan waa shuruuc ay ummadda ku maamusho oo shilinka somalilan lagu tayaynay marka cidda la rabaay inay tayayso oo wanaajiso dee waa bulshada weeyaan hadday tahay guud ahaan bulshada ku nool somalilan oo dhan iyo dee gaar ahaan bulshadeenna halkan ku nool marka halka khaladku ka taagan yahay waxa weeyaan dee ma nihin gobol ka mida gobollada maraykanka nolosheenniina waxaynu dibadhanis kaga dhignay inaynu ku manage garayno aynu isticmaalno lacag qalaad oo sida doolarka oo kale suurtagal ma noqonaysa in qof kastaaba uu lacagtiisii daadiyo oo uu doolar uu jeebadaha ku wato yaa mar walba waxaa imanaysaa in lacagtii marka dadkii lahaa ayna isticmaalayno ay ka yaacaan dee qiimo dhac baa imanaya marka waxna bulshadaa leh waxna dawladda laga rabaa dawladda waxa laga rabaa inay xeerar iyo regulations iyo nidaamkii dawladdu way wadaa baanka dhexe iyo wasaaradda maaliyaddu nidaamkii way wadaan laakiinse innaga laynaga rabaa innaga waxa laynaga doonayaa inaynu lacagteena qiimo u yeelno innaga weeyaan dadka u yeeli kara qiimo laakiinse haddaynu innagiiba nolosheenii meel kale ku xidhnay dee waxa weeyaan way adkaanaysaa marka qaybta dhiman anu waxaan qabaa un qaybtii ay dadku lahaayeen laakiinse shuruucdii iyo nidaamkii baanku iyo wasaaradda maaliyaddu way wadaan waxaa jirta gudoomiyaha xisbiga mucaaridka wadani waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey baynugu eedanay inay musuqmaasuqdeen doorashooyinkii dalka ka dhacay ee xisbigiinu ka soo baxay gudoomiyaha xisbiga wadani iyo gobolka awdalna sidoo kale eedeymo ayuu xisbigiinu u soo jeediyey arrinkaas maxaad ka leedahay wallaahi horta waxaad moodaa xisbiga wadani inuu weli doorashadii ku jiro kaambeynkii doorashada inuu ku jiro iyadoo 7 bilood laga joogo waqtigii doorashada ayaa haddana waxaad moodaa inay shaashadaha u taagan yihiin oo ma garanaysaa waxoogaa cambaaraynuun ay kaga dhegan tahay runtii haddaad meel ku jabtood system aad ku shaqaynaysa aad ku jabto waa inaad isweydiisaa maxaa kaa khaldamay waxa weeyaan xisbiga wadani waxaad moodaa in siyaasadiisuba ay ku salaysan tahay hadday heer gobol tahay iyo hadday heer qaranba tahayba inay shaashadaha un taagnaadaan oy cambaaraynuun ay wadaan marka dee taasina waa dadka somalilan way arkayeen waa tii ay doorashada ku galeen oo codkooga ay ku siin waayeen istilna waxaad moodaa weli inayna fahamsanayn oo halkii doorashada ay ku fashilmeen uun ay u taagan tahay marka waxaan qabaa marka doorasho la galo dee waa xisbi doorashadii u horreysay ee uu galo xisbiga markii uu ururka ahaa doorashadii golaha degaanka ayaa horta doorasho ugu horreysay laakiinse doorasho isagoo xisbiga uu galaay doorashadii ugu horreysay tan madaxtooyada bay ahayd haddaan taariikhda dib ugu noqonno xisbiga kulmiye markii doorashadii madaxtooyada 2003 uu galay dee 80 cod baa waa lagaaga badiyey leyn isagoo danta qaranka iyo ummadan milgaheega eegaya ayay u tanaasuleen hadal dambe iyo buuq dambe lagama maqli wayse soo abaabuleen iyagoo diyaarsan markii dambe almost wax 100,000 ku dhowdhow 90,000 wax ku dhowdhow ayay ku guuleysteen maanta oo xisbiga wadani lagaga badiyey wax 80,000 taqriiban ama 80,000 iyo waxa dee waxay ahayd inay iyaku dib isku eegaan ya marka anigu ma qabo inaan la musuqmaasuqay tartan bay ahayd tartankana cid uun baa badisa xisbiga kulmiya baa murashaxiintiisii madaxweynaha hadda mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa ku guulaystay dee waxa qurux badan maadaama 80,000 lagaga badiyey inay haneeyaan baa ayaa qurux badan saasa qurux badan waxaan ku jirnaa gabagabadii barnaamijka waxyaabo badan hore waan uga soo wada hadalnay waxayse soo tarayo colaadiyo xisbigiinu markii ololaha ku jira wuxuu ballan qaaday inuu kor u qaadayo wax soo saarka dalka biyaha nadaafadiisa caafimaadka iyo waxbarashada maxaad ka qabateen muddada joogtaan taasoo dhan wax soo saarka waa xisbigu wuxuu dhiirigelinayaa marka hore wuxuu dhiirigelinayaa inay dadku iyagu
wixii ay quudan lahaayeen ay la soo baxaan wasaaradda beeruhuna waa tan wada pilot projectska dhowrka site laga wado ee tijaabada insha Allah waxaan rajaynaynaa dee in siteska iyo meelaha kale ee wax lagala soo baxayaba ay agab wanaagsan oo cunto oo bulshada Soomaaliland ku filnaada ay ka soo baxaan arinta biyuhu iyo dee kaabayaasha dhaqaalaha haddii biyaha tahay haddii waxbarashada tahay haddii caafimaadka tahay dhammaantoodba xisbigu dowladdu wada xisbigaa dhalay dowladda moogtahay marka dowladdu hawlo waaweyn ayay gobolada Soomaaliland oo dhan taana laga wadaa caafimaad waa arrimihii bulshada oo dhan buu caafimaad ku soo hosgalaya ugu dambeyn waxaa jirta in bulshada gobol Soomaaliland oo dhan ay marba marka ka dambaysa ay xisbigii wadani ee kulmiye ku eedeynayaan inuu waxyaabo badan ka qabanin waxyaabihii ololaha ku galay hadday noqoto dad ballan qaadi u sameeyo waa magacaabayeen hadday noqoto arrimihii saxbarka arrimaha colaadaha soo noqnoqday arrimaha saamiga rajaynta lagiyada waxa soo dhan ay nagu gadaamihiin rajaynta lag bad ka qabtaan inaad mar saddexaad ku soo noqotaan talada dalka horta doorashada imikuun baaba la galayba oo 7 bilood meelaha 7 bilood 8 bilood baa la joogaa waqti dambe oo ilaa 5 sano 4 sano zaayidina way hadheen marka runtii shalay xisbigu waa guuleystay guul muuqatana waa ka keenay waa wax muuqato oo cad oo sida dhagaarta wacad waqtigeeda taana hala gaaro markaas maadaama tan un baa dhasha moogta tan un baa dhasha moogtahay ta kalena marka kolley annagu xagga rajada guul weyn baan rajaynaynaa laakiinse waqtigeeda lala sugaya haddii ilaahay ugu dambeyntii maxaad bulshada gobolkaawda ee idiin codeeyay muddadii waqtigii ololaha doorashooyinka garab inagu siiyay inaad soo baxdaan aad fariin u direysaan bulshada waanu mahadnaqaynaa fariinta aanu diraynaana waxa weeyaan ka xisbi ahaan in dowladda lala shaqeeyo waayo dowladdu in dadku ay la shaqeeyaan oo mujtamacu la shaqeeyaan dhammaan kii u codeeyay iyo kaan u codeynba in la isbarbar taago waayo qaran baynu nahay in qarankeena laga ilaaliyo hareeraha laga wada joogsado ama ha u codeeyo ama yuuna codeynin taasaa muhiima marka bulshada guud ahaan in waxaan leenahay dowladda hala shaqeeyo intaasina daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhiga TV-ga oo alaaba toddobaadkii hal mar idinka imaada stuudiyaha telefishinka uu ku leeyahay gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal daawadayaal barnaamijka xiga intaynu ku kulmi doono waaniga iyo dhammaan bahda TV-ga oo isku duubnayn leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma tahay sidaad uga qayb qaadatay barnaamijka bandhiga TV-ga